dhawaada qaybta labaad ee barnaamijka Gungaar. qaybtan labaad ee barnaamijka Gungaar waxaan ku dul istaagi doonaa hababka ay dilalka u sameeyaan iyo sida u shaqeeyaan kooxaha wax dhagre ee dilalka geysta. Maxamed Xaaji Ilka Case waxa uu barnaamijka Gungaar u sharaxayaa waxay yihiin kooxda u yaqaanaan amniyaadka ee ka shaqeysa dilalka dhagarta ah ee lala beegsado muwaadiniinta Soomaaliyeed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي أدبا السلام يا سلام كبعدي ولا يا وحسين حبيبتي مركو رئيس كعد سنة يا إن أنتي نهري وسجل تنام بمقالك إن لايك هي شير أتصال سيدو كلا أذيك أو مهتم هذا قصة الجنة كان إن سبسكرايب يسالتو dhawaada qaybta labaad ee barnaamijka Gungaar. qaybtan labaad ee barnaamijka Gungaar waxaan ku dul istaagi doonaa hababka ay dilalka u sameeyaan iyo sida u shaqeeyaan kooxaha wax dhagre ee dilalka geysta. Maxamed Xaaji Ilka Case waxa uu barnaamijka Gungaar u sharaxayaa waxay yihiin kooxda u yaqaanaan amniyaadka ee ka shaqeysa dilalka dhagarta ah ee lala beegsado muwaadiniinta Soomaaliyeed. horta ninka amniga ah shaqadiisa waxa waaye koowaad inuu horta dhulka yaqaano oo dhulka duusan aqoon waxba ma sameyn karo. degmada isagoo ku howlgala inuu ka sakaro horta haddii la soo bursado inuu iska difaaci karo isagoo luqluqeena oo ka dhex bixi karo tababar iyo wax kadib. maxamed waxa uu sidoo kale barnaamijka u sheegay hababka ay wax u saamiyaan iyo sida ay wax u gaadaan. anaga kadib waxaan la dhijirin hebel asoo galay daba dhigta anaga aan sheegin xiliga la kici doono laakiin surveillance oo aad camera taas oo daba kici jir markii la soo oo anaga report maalin walba gudbin jir meeshu tag markii anaga nala la boodi jir. dadka ka mid ah kooxdan dhagrayaasha ee wax dila waxay isticmaalaan taleefannada ay u yaqaanaan kuwa shaqo. waxaa sidoo kale jira habab ay u kaydsadaan taleefannada ay ka mid tahay inay ku qortaan biyoolaha dhakhtarka iyo wixii la mid ah si aan loogu mashquulin taleefannada u kaydsan. barad marka la safgareysana in la sii raaciyo magacyo qaytalo hebel biyoole ninka biyaha keen hebel barf professor hebel taytaladaas yani waxay fududeynaysaa hadii sardoon kale uu ku qabto inaysan dhiis ku dhicin dictatorka iyo waxa dictator balaamish ku safgareysan u dhaha laakiin haddii xasan ama cadde kale ay ku qoran tahay ka hor ama carab kale oo qofka qaadanaya mobilka waa inay maxduud ahaadaan simkaarkaas qofku wato waxa laga soo qof inay ku safgareysan tahay iyada dambe oo dadka shaqada kaga dhaxaysa bis laga wacay waa mamnuuc lambarkaas qofka laga waco dadka shaqada ka leeyahay bis ay yaqaan dad minis diladamiyo meel ka raadiya male hadii la qabta xataa lambarka la bedelna meel qof ka raadisid male wax walba atay xataa. maxamed Ilka Case waxa uu sheegay in hawshooda aysan ahayn bastooladley oo kaliya balse ay bambooyin tuuraan wuxuuna aaminsan yahay in jugta bambooyinka oo laga maqlayo meelo fog ay ka saameyn badan tahay dilalka isagoona ku doodaya inuu isagu yahay qabiir marka loo eego habka uu tuuro bambada oo aan la ogaan karin ilaa ay qaraxdo. afont hadii la telefon waa kala baxday ganjada ciyaalka hore waxay sameyn jireen mugtaga waa ku tuuri jireen askarta ama wadadka meel ama xidhawaan ama guri ku tuuri jireen. ciidan adduunyo marka jaanis wuxuu leeyahay markay ku soo dhacdo uu arko ama tashta uu maqlo jaanis ajar uu fadhiisana oo jiifan kar qofka hadduu jiiftana inta ku soo dhacdo waxa baa marka hal rabaa tashta inay gacanta ay ku soo dhacdo markay ku imaanayso maraysan qofka jaanis lahayn macna. bamba tuurkii ugu halisanaa uu sheegtay inuu sameeyey waxaa ka mid ah bamba uu ku tuuray meel la isugu yimaado Xamar Jajab halkaas oo uu sheegay inuu gudaha u galay kuna dhuftay laba bam gacmeed. waxaa aad ugu sameeyey qolooyin oo Xamar Jajab shiishad ku cawi jireen oo BS ah jireen Xamar Jajab taandhow waxaan filaa sanadkii inuu ahaa 17 16 dhamaadkiisa inuu ahaa waa caawin qisas Xamar Jajab qaybta israaca ka dambeeyay guriga ku marqaamayeen guriga la dumiyay idaacadda wala yeeshay markaas waa dadka abta guriga oo qolka oo galay mugdi ah qolka shiishada cawaayeen gabdho BS iyo mootooyin balan ku yaaleen laba xabaan watay kaliyeena qof ila galay markan waa kaliyeeya waa galay maalin badan istadlaaceen meeshaas shaqada habeenkii rabta inay dhacdo dhalinyaradii soo bixi waayeen shaqadina waa lagu soo celinaya kaliya gal qalilay waa ku soo celinaya telefoonka dibnin kaliya gal وكابرهنا سيدي ku dhacday markii halkan waa qolkii ay dhalinyaradu ku sugayeen banooniga
kuna ciyaarayeen laadhuuda oo maxamed xaaji ilka case ugu soo galay kuna dhuftay 2 bam gacmeed. kuwan waa qayb ka mid ah astaamihii bam gacmeedkii uu qolka ku dhuftay maxamed xaaji. mid ka mid ah dhallinyaradii waqtigaa ku sugnaa qolka ayaa noo sharaxaya wixii halkaasi ka dhacay iyo waxay qabanayeen. maalinkaas waxay u dhaceen anaka banooniyan sugeynay inaan fiirsano laadhuuga mobilka wada dheeleynay nalka naga dansanay irida nala soo galay irida markii nala soo galay bamba nala soo dhiibay bambadii waa ka tibtay mid kale naloogu soo celiyay tiya qaraxday wiilna waa ku dhintay wiil kale waa ku dhaawacmay mid kale shabaq ku noqday mid kale waa ku jabay aniga fiirra galay saasay wax u dhaceen. marka qiyaastii ma qadal yaraayay waxaan ahayn 9 ahayn wax dawladdu shaqeeyay ku jira wax dawladdu shaqeeyay wax la shaqeeyay midna nagu ma jirin waxaan shacab ciyaal iska xaafadeeda aan balooniya sugeeyay. waxaan u maleynayaa in lagu bartilmaameeyay ma garanayo ilaa hadda wallaahi ma aqaan. maxamed xaaji ilka case waxa uu sheegay in bambatuurka lagula xisaabtamo inay keenaan gaanjada bamka taasoo ah caddayn uu ka rabo qofka soo diray wuxuuna ku doodayaa inay tahay taasi qayb ka mid ah isla xisaabtanka bambatuurka. maya dhalinyarada haddaysan expert qofka duusan expert ahayn gaanjada ma bal rabo in la tuuro gaanjada waxaa la rabaa markaa soo tuurtid sideeda ay tahay fartiga soo saarta laga rabo amiirkaana ay macna haddii kale macna waxa laga yaabaa in meel kuwaasoo tuura dhihi karta waxyaabaha accountability ka mid tahay ina bam soo tuurto waxa cadayna gaanjada ay keenani meesha san kugu sugaa. maxamed xaaji ilka case waxa uu barnaamijka gungaar u sharaxaya waxa asaasiga waa si ay wax u dilaan isagoo weliba sharaxaya qofka aan hubaysnayn habka ay u dilaan taasoo qofkii darso wax ka baran karo una kordhinaysa feejignaan iyo inuu isagoo aan hubaysan samayn karo iska caabin. dadka markii cabaar ay ku dhex jiraan hawsha expert ay noqdaan ba lawma u baahan kaliis soo gal kara qofka kale wuxuu dhaabis dadka yeelaan anagu faatixinkan qofka soo kala xirtay maxaa la jiray baskoolada la soo kala xirtay inta hadafka la soo laabto hadafkiina uu fadhiyo hadduu si jeedo ama horta waxa isku dayaysa maruu binaadan wajiga ugu imaanin oo wax walba dhici karo wajiga oo fakan karaa adoo dhan waxa ku filan markaas soo inuu hal mar ku istaago hadafku waa labeynay inta ku dhufan waa ordayay aba uu noqon ninka marka inuu si jeedo ama inta ugu imaado ama isagoo ugu imaan heshidaad isku day laakiin haddii ay dhacdo inuu derbi madax kul jiro sideeda camal hadda meel ka dambeys laga gaadi kara ma qofka intuu ku soo socdo waxa laga rabaa 3 talaabo marka uu yaraa marka la soo jirtid inaad ku soo bilowdo taxbada marka maxaa laga wadaa marka hataa uu taagan yahay hataa 3 talaabo soo jirtid hadii wajiga ugu hor imaanaysid inaadan la soo raadsan madaxiisa oo ku dagaalama kara qofka naafeen alla marka ina qofka aad dhigin kartid horta meelaha lacag ka saari kartid marka ku dhaco madax markaas lagu baashaala kor laakiin waxa isku day hadafkeen la dhigo horta marka qofkaas ku soo weerar isaga dhanba wuxuu ku filan hal mar inaa u istaagtid. maxamed ilka case waxa uu kaloo sheegay in qofka dilaaga ay qasab ku tahay inuusan ku laalaaban goobta uu wax ka samaynayo falka ka hor taasina ay tahay cidda qabanaysa kooxda saaminta ama istikhbaaraadka u yaqaanaan. waxaa mamnuuca adoo nin ikhtiyaar rabo inaad meeshaas ku laalaabatidna dharkaaga aweeto xasdan nin anteena u hool saaran marka aad soo bixisid oo hadafka aad soo aadaysid waa mar adiga aad u soo diyaar garowday. maxamed xaaji waxa uu ku doodayaa in qofka bastoolada haysta uu la mid yahay qof aan hubaysnayn haddii uusan diyaarsanayn oo feejignaan uusan qabin wuxuuna sharaxayaa hababka aysan suuragal u ahayn in loo bareero qof bastoolad wata haddii ay ku arkaan qof hubaysan habka asaa kala aadana qofka hadduu bastoolad ku hubaysan wali wuu yeelaa yani gaar ahaan qofka hadduusan digtoonin lahayn waxaa laga yaabaa bastoolada in caadi isagu koob gareysneen amaanku san u furneen caadi isagu wato waxa uu tartamo markaas soo baskool laana amal waa laakiin markii qofka isaga intuu waxay u koob gareysan amaanku u furin dubahan uu dhigay ama dubihii uu ka ururin uu sameeyay wala ka urursan hadda ka urursan taa waa iyadoo dubaha ku dhigan amal lamagti. maxamed xaaji waxa uu ku doodayaa in qofkii 1 sano ama 2 sano wax soo dilayay ay ku adag tahay inuu wajaho qof hubaysan balse qof sidiisa oo kale waqti dheer wax soo dilayay ay u fudud tahay taasoo muujinaysa sida maxamed uga baxay xayndaabkii dadka caadiga isagoo isku arka qabiir ku takhasusay wax dilka yani jaanisi waxa leedahay qofka aad kula hirdami kartid oo qofka markii isaga soo socdo adoo dhan waxa ku filan inaad inta wabstido aad dhahdidno kadibna meesha u banaysid hadafku uu qalcdo markaas biswa
هدفك مر والبا دقدقاق ادي قفكاس اوسن كو اوغينا سميست و قلوعين الا ما قفك انو اهاد قف دغن او wax badan soo ikhtiyaale inuu ahaado kuwa dagaalamo waa gooni taas laakiin qof hal sano laba sano wax dilay ma sameyn karkaas waa maxay dil ama ikhtiyaalaad waxay u yaqaanaan waxa uu maxamed xaaji ahaa dilaaga ugu weynaa muqdisho oo ay soo qabteen booliska gobolka banaadir sheegtay in dilkoodu yahay gaadmo isagoo aaminsan haddii aad weerarto qof iska kaa jira ay noqonayso dagaal ku xiran qof iyo kartidiis taasna aysan ahayn shaqadooda waxa qasab ah qofkaas maankiisa wax yar in la dooriyo wax yar in la dooriyo hatta nin isaga uu ka shakina hatta oo hor dhigo intuu istaa kan soo ku gaadin kaas ay ku dhacdo ikhtiyaalka mar walba waa gaadmo hadii san gaadmo naqan ikhtiyaal ma dagaal waa suurtagal ma tahay inay gaadaan qof qori haysta maxaa looga baahan yahay qofka qoriga wata si aan loo gaadin waa kan mar kale maxamed xaaji oo sharaxaya hababka suuragelin kara in la dilo qof hubaysan ninka qoriga wata markaan soo galo ninka qoriga wata aakaha wata waa la kala saaraa hadana يعني ninka marka aan la aadi karin oo aakota markuu gacanta u haysta aakaha anta oo meesha mastarada masaafada qaybtan kor alwaaxas oo haysto waa marka qofka la aadi karin oo si walba qabsan kara qoriga qofka markuu haysto si walba qabsan kara waxa kale lamid ah qofka marka isagu intuu u soo gashto saas uu haysto dana u soo gashto alamida laakiin saas uu gashto oo qoriga soo aadisay okay waa marka cunaysid waxa laga yaabaa baxtayna asaas oo qabatid gadaal ka saartid ama qoriga afkiisa saas ay leexsad asi muxuu sameey karaa marka uu baad qoriga afkiisa xaq waadin in qorigi qofka gacanta uu ku haysto halis waay yaa loo dhawaanin saas duu uu wata geesaha isku firmaya loo dhawaanin laakiin garbku uu saaran yahay iska xarakeynay ana xarakeeyo waay ba ka sadoo wuxuu limita ninka biskoolada soo qaatay biskool isagoo wata aan dubaha u dhignaan am ka baan urursan iska socdo maxamed xaaji waxa uu sidoo kale muujinayaa inay jiraan fursado lagu gaadi karo qof wata ilaalo isagoo dhinaca kalena sharaxaya caqabadaha jiri kara halka qof dul socdo waxa halis ah inay kala fog yihiin labada qof oo ay is wardiinayaan markii uu la haysanta oo adi madaxda tahay bacda nin sarkaal tahay ninkan staafka ah marka is wardiisa ma la soo dhawaan karo oo kala durugtaan oo ninka kala u wardiyay ama laba gees kala martaan asaas kula socotaan lama dhawaa karo laakiin markay isla socdaan wali wasidii meelaha ugu badan ee al-shabaab ka faa'iideystaan waxna ku dilaan waa suuqyada masaajidada iyo meelaha xariiriga ah wuxuuna maxamed xaaji aaminsan inay meelahaas yaalaan fursado wax lagu gaadi karo ayna ku badbaadi karaan iyagu markay wax dilaan kadib ugu fiican wax lagu tiyaar karno meel bulsho ah oo dadka ay ku badan yihiin oo qofka ingiisa milyan qof ay qabanayaan laakiin wada nadiif ah qof socdo ikhtiyaarkiisa ma fududa horta hooyiisa aan number 1 ah oo qofka hooyigu ku hooyanayo in la helo waa imaam masaajid uu ku tukanaa laba ah waa imaam wada uu maray wadooyinka uu badan saddex meelo ku kala lacaan hooyigiisa in gudaha loo galo ihtimaal waayo huwa uu yaali karo qof la joogi karo oo ma lagu fududa ilaa laga ogaado gudaha qof ay ku noolyihiin akadiisan hooyigiisa nin oo ka soo baxo subaxdii oo kadibna mar walba uu soo baxo sida rag istikhbaaraadka ay sheegaan uu soo baxana ka wadadana soo istaaga bagaaj suuga way fududa oo soo baxo wadadan ilaa xaq bulugeeya masaafadaas xaq gaara karaaca way fududa laakiin uu soo baxo wadadu ku soo baxay ma yaqaan tan uu aadi kara tan uu aadi kara taas waxay ka dhigan tahay dadka oo dhan inay baqtiyaan si hal wada isku haayaan إلى صدق حدين حتى صدق وده اسمه دقيقة أنا حلقة اختياري كر بدنته أو لبضة كالول ولا مرول بكل الله هذا كله قفك أو حكيتي له حكم وضن كرمات طبعا ولا سؤال بعدين يكون جيران أو مركي هدف كلا أركلا سواقاته لكن سؤال ده كشنا هبلا وضن كسوجا ما وبدأت كي يكفش الماء حتى وعمل قفك لو خبطه حالا marka aad silaax soo qaadanayso toobka iskooladaada iyo marka ikhtiyaarka galiis wax daqiiqad yar la in ahaadaan daqiiqad yar dumarku waxay qayb ka yihiin kooxaha sameeya dilalka dhagarta waxayna shaqadooda ku sheegeen inay ku kooban tahay qaadista iyo qarinta hubka iyagoo isticmaala bajaajyada
naag dumar in loo helo waa xilliga hore raga qaadan jireen dhalinyarada bacan wax ku qaadan jireen bacdan oo fashion-ta buugta kursaysan am geesaha qaan jir raga dal isku fahmay laakiin naag qadad bajaajyada soo batay fursada kala waay bajaaj loo qaadanta badan naagana qaado inta badan bajaajka oo wada waxa lagu fahmi karaa darawalka iyo naagta gabadha waxa u sadeexeeya hal wiil kale oo iyada la saaran ama geeska darawalka saaran bajaajka ka saaran waana fahmi kartaa inta badan gabdhaha qaada waa la heli karaa 30% inay dhalinyaro yihiin ay dadka magaalka u egyihiin laakiin inta badan maamooyin wiilka bajaajka saaran geeska ka saaran foodiisa iyo gabadha hubku wato ma islaam banaagta naag xijaaban waay isagana nin madax weyn furan ana isma islaam مثل هالمعنى وجرى كرتا قبر يجينا يو ويلكن يو لكن ما بدنا قف حجابا وقف كان والله هي سنكر حتى أسكر دو قبطه ولا هل ذكرته marka ay dhaxayaan hawlgallada dilalka ah waxay inta badan shabakada ilkaxas isticmaali jireen laba mooto bajaaj kuwaas oo mid ay saaran tahay haweeneyda hubka wada halka mootada kalena ay wado dilayaasha kadibna marka uu dilku dhaco waxa bixi jiray mootada haweeneyda wada halka dilayaashuna ay lugayn jireen xoogaa mootada kalena ay indhayn jirtay in la xiriirsanayo yan kale موتوين على ذيك سنة نك أو شقده جامينا قائد كأ موتو لو لقى سوته أو كركاس ده روك إستاجا إسجا لو بجاج سعته بجاج نحلو ولا معمد هو كودا أما جبر أنت بدن جبر واي وحلو كودا بجاج تكلم وحصارن بلن يرد هو شغال لك لبده ويل يدرولك مركا ما بس نصعد ما أيه مركا أنا مش تاجن أيه أما نك أنتنا ده تاجن نك استخبارات كانوا ولا حجرة هي شقة ديار وينك الصوب بوبسير معمد لو قيليسا كان لو قدام قال لبدا بياج ولا اسق دغايا birta la kala xirna la kala baxa marka wad deganayaan marka soo cuntaan loo qaso mara xaq nooga imaada noo position kala qaadana marka ninka oo hogaanka wada oo ciidanka wata qaydka amar walba waa inuu arkaa ciidanka soo cunayaan markay baxaan oo inuu joogaa meeshii dadka soo daba kacay u sheegi karaa bajaajyada ay isticmaalaan maxamed xaaji waxa uu sheegay inay qayb ka yihiin hawlgalkooda isla markaana ay wax ka ogyihiin sida ay wax u dhahayaan horta bajaaj oo aan shaqo wax ka ogeyn ma jirto lama saar tasartadan kala dhaxad ila bajaajka noocu yeelay ma yaqaan BS ma taqaanid bajaajka hubka saaran always ninka wada waa ninka wax keenay wali dadka hubkooda waa ka dirin ka sadaranta laakiin bajaajlaha dadkan waa la soo raacay maya ما بلسكو أمين بانك بجاج لهم كشكناد واحد واحد ليميتين هذا يعني قف كان دي واحد يكون عنو إن مين لو رعن كنا محمد حاج waxa uu sheegay in shuruudaha laga rabo qofka ka mid noqonaya kooxdooda dilalka looga baahan yahay inuu yahay qof aan la aqoonsan karin oo aan soo marin qaybaha kale ee al-shabaab sida xisbada iyo wixii la mid ah amniga waa qof dadka aan aqoonin muhiimad waana amniga waa qof aan dadka aqoonin taas maxay ka dhigan tahay horta adiga in maalin xataa qof usan kugu dhigi karin shaawata usan ku dhigi karin taas inay jirto horta hadii san jirin dhibay leedahay qof xisba aha mujidka am dagaal soo gali jiray ma fogo inta soo gali wax dil la dhax qofka waa in hadii madaxtooyadu dhaxmar aan lagu dhigi karin horta waa inuu noocaas u yahay horta sidoo kale waxaa la soo baraa inay bulshada ku milmaan oo ay ku dhaqan noqdaan sida inay dhalinyarada garoomada kula ciyaaraan banooniga iyo wixii la mid ah qofka inuu bulshadaas uu ku nool yahay sida uu egtaa uu ekaado dhalinyaro baloon haday inaan baloon dhili karaa tahay haddii dhalinyaro iskooli aad tahay inaad private ka dhigan kartid haddii saas bulshada inaa aadan ka duwaneen meesha waa la isku barayaa al-shabaab waxay dhalinyarada ay maran habaabyaan u fasaxaan wax kastoo aysan ogolayn diinteenna ay ugu horreyso daadinta dhiigga muslimka waxaana ay hadda soo kordhiyeen inay dhalinyaradooda u fadwoodaan maandooriyo nooc kasta inay isticmaali karaan si ay u dhagraan dadka iyadoo oo laga ilaalin lahaa inaad balwad baratid oo aad sharmuuta naqatid oo aad xumaan samaysid iyadoo laga ilaalin lahaa aadan waxa mubax ku ah si adowga u dhagrisid inaad haddii xashish ah ka dawactid marka nin amni oo suna ka muuqato maya sidoo kale waxa uu maxamed xaaji sheegay inay mamnuuc ka tahay inay ka muuqato sunnada nabiga iyadoo laga rabo inay u labisaan una xirtaan sida ciyaal ziyaha
tusaalahaan marka adiga hadda inta ka baxdid oo aa fashilantid ama inaad nasasho marka oo toro aadid madaxaaga dadka u jiriina loo jaraa foodan ku socona meesha malaga yeelay xisba ku qabanaysa wana fashilanti xisba qoon maxaa dheh xamaran ka imaadeen xabsa loo gelina amiirka ku imaana gaar buruufo gaar mugdi ku imaadeen amniyada taa ku fashilanto ana iska soo jarjay iska soo jeey nidaamka xagga raaci maxamed waxa uu qabaa in ka mid noqoshada noloshan shabakada wax dhagarta ay tahay mid mugdi ah oo xanuun badan horta amniga nolol cajiib badan oo mugdi ah nolol aad mugdi ah xanuunku qofka amniga uu dareemi karo markii saaxiibkiisa la qabto saaxiibkiin uu ahaa qof isaga yaqaana waa dhib badan tahay that's why qofka haddii aad madiina degan tahay oo mar walba inaad isku aragtaan banaadir waa haddii la soo qabto mar walba wuxuu banaadir ku kulmi jiray ninka ciidanku waa la geeyay banaadir oo dhan la baarayaa ka tadana raad in lagu helin waa macna muhiimada saas waa raad in lagu helin bal hadduu ku soo qabto xataa jidka saxdii loo raad ku helin ana banaadir ku kulmi jiray ha magaca waxa la xudeyfa leebna waxa xaja leedahay ها تقول مجرد بنادر عمري متين طلع عندك أنا نكرت المرقات يلا كاس قدومي واحد كذا قاعد هيرس لما ركع وحرجت المركع عمري ما قال المركع واكنا والدين تدي أسكالات وإحنا زويدي تتكاس الدين تهبل ما بقى قانية هرات نوصل لهن يعني حتى هذا اللي حكمه هذا ملل لقاه يعني اللي حكم maxamed xaaji ilka xase waxa uu barnaamijka gungaar u sheegay inuu dilay 2 qof oo saameyn ku lahaa noloshiisa kuwaas oo midna uu ahaa saaxiibkiisa kaliya abiis oo lagu magacaabi jiray baadil caana ka ah xamar jajab iyo nin ay qaraabo yihiin oo gacan ka geystay sii deyntiisa markii kol hore la soo xiray taasoo ka dhigan inuu dilay ninkii soo daayay waxa ugu yaabadna horta 2 nin midna qaraabaan si gudoonahay oo daladaas anaga dhaxayso si hadii loo fiirin aabir saaxiibayeen aday u adkaato waana ka farsan waay nin la dhigi jiray bedel ama baadil saa u taqaana baxbar jabaysan jiray xiliga mooriyaanta oo sarkaal ah soonka 2016 ka la dilay abriil lagu soo aadamanay xiliga soonka ma jeclan in dilix adeeraan dhigi jiraan waliye way dhibi waa ka farsan waay marka maanta aday saan waxa lagu dilay boolaalay anwa أبي صاحبي أنت اللي نقدر تيجي كم ده أي بقول إيه وضوء حجر تغير موضوع لو وصل لي حنا أيه أو كان أو وضوء حمر تاع وزارة ده أنا أقول هذا شيء هذا شيء موتين مرجرين موتين مش مرجرين مرة حجر أو هذا السر عيدا فدين جري أنا نقول دين جري برو كل جنود تجينا بس هنا كان برو سالو درها marka ay maxamed xaaji ilka xase iyo kooxdiisu si dhagar ah wax ku dilaan kadib maxay sameeyaan isaga la fahantiisa ayaa sharaxaya waxa xiga dilka kadib horta dadka ma orda markay wax dilaan horta ee dhil ma lagu orda xaaladda dadka haday dad badan yihiin labada orda waa la orday haday dadka taagan yihiin oo taagnaanay soconay marka luuqa koowad agashaa fakanay bas ala sara xawaariyay bas si laga soo doob bixin laakiin dadka ku arkaa da ordid dadka isku dirtay qabtaa باش أسيني وصعني لو ويل أنت ما أردن مغل جرتن ما أردن أنا بدي أسوق أردن إنك ما أردني لكن مركب بق أي مغش ده كنا لبعض أرده مسك علني تذكر أردي هذه هذا جوكسان ولا جوكساني شردي لوخ كواد دوساس أو جش لوخ كواد إن هذا أب بحثت حواريس كدمنا لوخ كلا بجاك تعالى على تسكيلي بعد هذا لوخ بتاع واحد مدري بهم حسبيني nin ambaarito dadka lahaynaya tahay dumarkiyo caruurtiyo duqawiyo aqooyahan aanu jirnaxayno tabargoynaya tahay maxamed xaaji ilka xase iyo shabakadiisa oo ka koobnayd 9 qofood kuwaas oo 5 ka mid ah yihiin maqarayaal waxaa la horgeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya darajadeeda koowaad baaris dheer oo ay sameeyeen hay'adaha baarista ciidanka sida NISA iyo CID ayaa kadib lagu wareejiyay sarayaasha xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida
oktoobar dabayaaqadeedii ayaa loo dhaadhiciyey xabsiga dhexe eedaysanayaasha waxaana uu xafiiska xeeraalinta xilligaasi isku howlay baarista eedaysanayaasha maxkamadda hor taagan iyo kuwa la shaqaynaya ay soo gudbiyeen xafiiska xeer ilaalinta bartamihii Noofembar ayay codsadeen xeer ilaalinta in la muddeeyo dhagaysiga kiiska waxaana ay maxkamadaynta eedaysanayaasha isugu jira maqanayaasha iyo goobjoogayaasha bilaabatay horaantii Diseembar sanadkii tagay ugu horreyntii eedaysanayaasha loo haysto ayay u jeediyeen garsoorayaasha waxaanu wax ka weydiiyey gudoomiyaha maxkamadda jiritaanka eedda loo haysto محمد حاج أحمد محمد استاك محمد وحلو جودي إيدا أديك سنيسي وحلو استا إن أذكرت سنتا كوحدة الشباب إن كوح أو غيب فلسة هرجوجا أضطهي دليلك أديك سنيسي وإلا سدح دجارة دليلك لنا فلسة لجوء إيدينا وعقوبنا سدح جواب مدود إيدا سمجلين إيدا سواقلي يدودن كقباسي وحجرين عشر حدا fadhiga hore inta badan lagu dhageystay marqaatiyaal iyo baarayaashii kiiskan ayaa mar kale dib la isugu soo noqday 16 Diseembar sanadkii tagay xafiiska oo fursadda dib u dhigista ka faa'iideysanaya ayaa soo diyaariyay shaxda horjooga ilka casay iyo kooxdii uu u talin jiray kuwaas oo maray xukun cadaaladeed iyo kuwa sugaya in cadaaladda la marsiiyo gaashaanle muumin xuseen cabdullaahi ayaa noo sharaxaya eedda loo haysto raggan labadii eedaysanee dilay marxuum xeefow iyo tilmaamihii ay bixiyeen saddexdii shakhsi lagu soo qabtay naasa hablood iyadoo laga duulayo la raadinayo shakhsigaas aadka muhiimka u ah oo ah ilka case laamaha baaristu waxa su'aalo laga weydiiyey qofka isaga ka sarreysay ee goobta keentay canshuur wuxuu bixiyey tilmaan yani ka dhow labadii tilmaamood ay bixiyeen labada mataqaanaa group ee ka horeysay isaga la soo qabtay canshuur wuxuu tilmaamay inuu amiir u ahay hagaayay nin la yiraahdo ilka case jenaraal cabdullaahi buule kamay xeraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa codsaday in dhammaan eedaysanayaasha la mariyo ciqaabta ay mudan yihiin dhammaan eedaysanayaasha oo u kala saaran 3 nooc qaar jooga oo ah dilayaal oo ku soo eedaynay 434 iyo 221 qaar maqan oo ayagoo maqana aan dil ku eedaynay oo kuwaan la wadaagay iyo eedaysanaha sagaalaad oo isagu ka mid ahaansho iyo sahan kaliya u ahaa laakiin aan fal gacantiisa ku fulin waxay ka kooban yihiin sagaalkooda marka laga reebo eedaysanaha sagaalaad 8 kale dadkii magaaladan dadka ku xasuuqayay ha ugu darnaado eedaysanaha koowaad waxa uu ahaa wax lagu qiyaaso miqyaas lagu qiyaaso halbeeg ma laha dambiyada jariimooyinka ummadda uu ka galay ma jiro waa dilaa arxan dalan waxaa nasiib darro ah hadda ka hor inta la soo qabtay aabbihii oo sarkaal booliiska uu damiintay ma daayeen aabbihiis xataa kabar buu u ahaa hadhowdii islaam markii lagu qabtuu ku damiinanaya xataa aabbihii ma daayeen waayo waxa uu dilay kii soo koriyey gacantii quudinaysay buu dilay ismaaciil janaal ismaaciil wuxuu ahaa kii soo koriyey marka oo gurigiisa uu ku noolaa gacantiisu ku dila sababta uu dilayna waa hal arrin ramadaan baa lagu jiray tiruu tirsanayay dadka uu dilaayo uu ku xisaabtamayay ma ahan insaan caadiga qof lagu tilmaami karo dad buu tirsanayay uu tirada uu dadka dilaayo tiradii baa ka dhimanaatay waxay gaarsiisay inuu dilo adeerkii isaga soo koriyey aabbihiina ma daayeen laakiin wuxuu u daynayay inuu u ahaado kabar uu ku gabado markii la xiro oo soo daaya waxaa intaas ka daran meel uu dad ku dhaafayo ma lahayn diin uu caabudayo ma jirin masjidka dhexdiisuu ku dilaayay kii masaajid ka soo baxo bannaan ku tugaayo waxaan codsanaynaa in ciqaabta u qolanta lagu xukumo oo dil toogasha qareennada u doodaya eedaysanayaasha ayaa iyaguna dhinacooda maxkamadda ka codsaday in loo naxariisto ciqaabtooda sharci aan la dhaafsiinin inta ay ogol yihiin maxkamadda sharafta leh waxaa ka codsanaynaa wax cadeymaha loo haayo oo ah inay ayaga qaraal yihiin oo shabaab yihiin keliya inay loo raaco kaas oo qodobkaas oo looga darayo qodobka 4aad
oo tilmaamaya waxyaabaha dembiga fududaaya maxkamadda sharafta leh intaasa ka codsanayna 31 Diseembar ee sanadkii tagayay maxkamaddu ka soo saartay go'aan rasmi ah sida warbaahinta u akhriya gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal 1 maxamed xaaji axmed 27 jir ah ina Faadumo Cumar Xasan ku dhashay Shabeellada Hoose 2 Saalim Saciid Maxamed 27 jir ah ina Leelo Xasan Cumar ku dhashay Shabeellada Hoose 3 Axmed Maxamed Haashim 26 jir ah ina Cadeey Axmed Islow ku dhashay Shabeellada Hoose 4 Sharmaake Cumar Axmed Xuseen 25 jir ah ina Sacdiyo Maxamed Cali ku dhashay Hiiraan oo maqane ah 5 Axmed Faarax Iidle 23 jir ah ina Faadumo Xasan ku dhashay Xamar oo maqane ah 6 Cabdiraxmaan Mustafa Cabdullaahi 22 jir ah ina Faadumo Maxamed Shaakuud ku dhashay Xamar oo maqane ah 7 Ramadaan Cabdiraxiin Mursal ina Muslimo Madgafiim ku dhashay Baar Dheere oo maqane ah 8 Cabdinaasir Axmed Cabduqaadir 27 jir ah ina Faadumo Maxamed Ibraahim ku dhashay Xamar oo maqane ah 9 Faadumo Xuseen Cali Cadaawe 24 jir ah ina Dahabo Cumar Wehliye ku dhalatay Hiiraan kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida si wada jir ah ugu soo eedeeyay in ay ka wada tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab gaar ahaan qayb fulisa dilalka qorshaysan iyo sahminta oo ka howlgasha magaalada Muqdisho markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dukumiintiyada kala ah cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedeysanayaasha koowaad labaad saddexaad iyo afraad oo goobjooga ka ahaa maxkamadda iyo cadeymaha iyo gungaarka laga soo gudbiyay shanta eedeysane ee maqanayaasha ah 2 qoraallo hore looga qoray xukunsanayaal lagu fuliyay qisaas iyo kuwa xukuman 3 sawirada iyo warqadaha cadeynta dhimashada marxuumiinta sare ku xusan 4 dukumiintiga lahaanshaha mootooyinka ay ugu adeegayeen kooxda Al-Shabaab eedeysanayaasha labaad oo goobjoog ah iyo 8aad oo maqane ah 5 galdacwadeedka hore looga diyaariyay eedeysanaha koowaad Maxamed Xaaji Axmed 6 moobeelada ay isticmaalayeen eedeysanayaasha labaad iyo 9aad oo ay ku jiraan sawirro ay u dirayeen kooxda Al-Shabaab markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedeysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in 9ka eedeysane ay wada yihiin dambiilayaal gale dambiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay 1 dambiile shabaab Maxamed Xaaji Axmed oo afgarashadiisu tahay ilka case 2 dambiile shabaab Saalim Saciid Maxamed oo afgarashadiisu tahay Salmaan 3 dambiile shabaab Axmed Maxamed Haashim oo afgarashadiisu tahay Carab oo dhammaantood goobjoog ka ahaa dhageysiga garmaqalka waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah 4 dambiile shabaab Sharmaake Cumar Axmed Xuseen oo afgarashadiisu tahay ugaaska iyo ganay 5 dambiile shabaab Axmed Faarax Iidle oo afgarashadiisu ay tahay Shuuriye iyo Madoobe 6 dambiile shabaab Cabdiraxmaan Mustafa Cabdullaahi oo afgarashadiisu ay tahay Faarax Mooryaanka 7 dambiile shabaab Ramadaan Cabdiraxiin Mursal oo afgarashadiisu tahay Saalax oo maqanayaal ah waxay maxkamaddu ku xukuntay ayagoo maqanayaal ah dil toogasho ah 8 dambiile shabaab Cabdinaasir Axmed Cabduqaadir oo afgarashadiisu tahay Carabey oo maqana ah waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'in 9 dambiile shabaab Faadumo Xuseen Cali Cadaawe oo magaceedu afgarashadu yihiin Faadumo Korneel iyo Cosabo oo goobjoog ah waxay maxkamaddu ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan raacfaan wabillahi tawfiiq
guud ahaan barnaamijkeenni gungaar oo ay gacan iga siiyeen cabdulqaadir ciise fu'aad muxyidiin iyo maxamed cabdi caraaye waa naga intaa tan iyo intaan barnaamij midkan lamida ku kulmayno waa bahdii gungaar oo idinleh nabaadiin iyo nooli kulanta